munaasabadahan oo ka dhacay meelo kala gedisan oo ku yaala degmada Caawda isla markaana loogu dabaaldegay maalinta xuska kooda Luulyo oo ah markii la isku daray gobolada Koonfureed iyo kuwa Waqooyi isla markaana uu hirgalay halgankii gobonnimadoonka ee dalka Soomaaliya ayaa xalay ilaa iyo maanta waxay uga soconayaan si toos ah degmada Caawda oo ka tirsan gobolka Galgaduud tamaashaadyo farxada qiira ku dheehan tahay iyo hal ku dhigiye kala duwan oo ay ku dheehan tahay wadaninimo farxadeed ayaa sidoo kale waxa fagarayaasha waaweyn ee degmada Caawda isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah oo ayagu muujinayay xuska dabaaldegga maalinta kooda Luulyo oo ku beegnay xalay ilaa iyo maanta waxaana sidoo kale goob cayiman oo mid ka mid ah fagarayaashii dadku ay isugu yimaadeen isla marhaantana laga dhaxmuday calanka shanta xidigood ee dalka Soomaaliya halkaas oo qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka margarka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa Carma ay ku soo bandhigeen salaan sharaf ay u saareen calankii maanta iyo dabaaldegii dadka reer Caawda ay ka muujinayeen kooda Luulyo Kornel Cabdiqani Warsame Xasan oo ah u qaybsamaha dawladda federaalka margarka ee Soomaaliya wakiilka u fadhiyo gobolada dhexe dalka Soomaaliya isla markaana kamid ah dadkii soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaa goobtii maanta waxa uu ka soo jeediyay khudbad qiimo badan isla markaana uu uga sheekeynayay halgankii iyo gobonnimada ay soo martay dalka Soomaaliya waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxa lama hurana maanta inaan in yar ka taabano munaasabadii kooda Luulyo oo ahayd maalin qadarin iyo sharaf intaba ku lahayd ummadda Soomaaliyeed kuna dhinteen dhigoodina ku waayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maalintaas waxay kooda Luulyo waa maalin ay koonfur ka irooday gumaysigii Talyaaniga isla markaana ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo Waqooyiga marka sidoo kale goobtii maanta oo aan loo kala harin ayaa waxa khudbada ka soo jeediyay gudoomiyaha maamulka culimada Ahlusunna wal Jamaa ee degmada Caawda Xasan Cabdi Calas Xasan Caawdo oo asagu sidoo kale goobtii maanta ka hadlay Faarax Warsame Cilmi oo ah taliyaha ciidamada booliiska Carme ee dawladda federaalka margarka ee Soomaaliya oo isna kamid ah dadka halkaas khudbada ka soo jeediyay ayaa asna dhankiisa waxa uu tilmaamay qiimaha ay dawladdu leedahay iyo sidoo kale haddii dawlad aan la haysan dadku aysan noolaan karin iminkana la taageero wax kasta oo dalka Soomaaliya dan ugu jira isla marhaantana ummadda Soomaaliyeed ay ku hirgashay qarannimo iyo midnimo guud ahaanba shacabka iskugu yimid fagaarihii maanta iyo goobihii lagu dabaaldegayay ayaa wajiyada dadka waxaa ka muuqanaya qiiro iyo farxad wadaninimo ayadoo sidoo kalena ay gacmaha ku haysteen qaarna xabadka u saarnaa waraaqa la soo daawacay oo ku dhagan yihiin sawirrada madaxweynaha dawladda federaalka margarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif sidoo kale ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka margarka ee Soomaaliya Cabdiwali Cali Gaas iyo sidoo kale Professor Xirsi Maxamed Hiloole oo ah gudoomiyaha Ahlusunna wal Jamaa ee gobolada dhexe dalka Soomaaliya waxaana guud ahaanba dadka reer Caawda saaka ay ku waabariisteen baabuur raxan ah iyo calamo gacmaha lagu sito oo dhex mushaaxaya gudaha iyo fagaarayaasha degmada Caawda halkaas oo yar iyo weyn ba isugu soo baxeen dadkiina ay soo u kala harin xuska iyo waliba dabaaldegga maalinta kooda Luulyo Mahad Xasan Diini TV-ga caalamiga Universal Caawda